wadamada saameyntoodu badana soo isla markaana sida weyn uga soo dhaxmooqanayo warbaahinta dunida odorasyada kala duwan ee la sameeyanayo iyo baxthiyada joogtada ayaa marka ka dameysa waxay yihiin kuwa saameynta ugu xoogan kule dunida marka ay noqoto loolanada adag ee caalamka ku jiro iyo sababariyaaca iyo sidoo kale raadinta saameyno iyo siyaasado xoogan oo ugu dambeynta keena wadamadaasi inay qaarkoodna adkaystaan hogaanka quwadnimo ee haystaan halka kuwa kalena ay raadinayaan hadeerto sidii ay mar uun ay majaraha ugu qaba lahaayeen horusocodka iyo saameynta ugu wanaagsanaa karta ee ay ka habsan karaan caalamka. Marka hore daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo aan ku eegi doono maanta wadamada iyo ururada ugu saameynta iyo hadalaynta badan marka ay noqoto wararka joogtada ah ee dunida iyo warbaahinta caalamka mar walba ay qaadaan dhigto. Soomaalidu inta badan warbaahinteedu waxay si xoogan ugu mashquulshaa xoogana u saartaa wararka gudaha iyo sidoo kale dhacdooyinka yaryar iyo kuwa maalinlaha ah inta badan laga soo tabiyo gudaha dalkeena hooy. Hase yeeshee warbaahinta dunidu way ka duwan tahay sidaasi waxaana mar walba ay la timaadaa jihayn aad xoogan iyo inay ka hadasho mawaadiic iyo toobigyo waaweyn oo idilkood ku aruura kuna biyashubta saameynta wadamadu ay leeyihiin iyo iyagoo tooshka ku ufiya quwadaha iyo wadamada kale ee iyaguna mar walba raadinaya sidii ay hogaanka dunida dhinac uga qabsan lahaayeen isla markaana u noqon lahaayeen quwado soo baxa iyo kuwa ku adkaysanaya in aysan lumin booska dirtay hogaaminaya. Haddaba dalalkan waxa ay kamid yihiin kuwa wararka joogtada ah ee dunida ugu badan ee maalinka la tabiyo. wadan kastana waxaa jira marxalado iyo arrimo ku xeeran oo keenaya in maalin walba laga hadlo oo markaasi aan qodob isku dul taagi doono. Wadanka koobaad ee ugu wararka badan maanta ama mar walba markaad booqato warbaahinta dunida ee kala duwan furto TV-yada caalamka eegto qaadadhigayaasha dunida ama si adigu aad ka fikirto mar walba in aad hesho xog dheeraad ku saabsan haddii aad tahay ruux si weyn u raba in uu dunida waxa ka soconaya uu si dhow ula socdo waa Ruushka. Wadanka Ruushka waxaa laga qoraa tobanaan warbixinood iyo warar kala duwan inkastoo weligiiba Ruushka uu ahaa mid kamid ah wadamada ugu wararka iyo xogaha badan ee caalamka haddana markan waxaa sii dheer dagaalka 10 bilood galay ee ku qaadeen bishii Febraayo ee sanadkan wadanka Ukraine. Taasi waxay keentay in warbaahinta adduunka oo dhan gaal iyo muslimba ay ku mashquulsan yihiin sidii xoga dheeraada iyo warar kala duwan looga heli lahaa. wararka iyo dhacdooyinka halkaas ka imaanaya waa kuwa isdaba joog kuwa waa dhacdooyinka caadiga ee maalinlaha sida dagaalo dhacay duqeymo sidoo kale dhibaatooyin iyo waliba arrimo kale kuwa kalena waa hadallada isdaba jooga ee dhinacyada Ruushka ka dhanka ah iyo Ruushka laftiisu ay isku dhaafsanayaan warmahana ay isku dhacayaan afaafka leensiyada warbaahinta iyo dhuumaha xogaha laliya. Ruushka kaliya maaha waxa laga hadlaa maalin walba dagaalka Ukraine laakiinse waxaa jira arrimo waaweyn oo dhaqaale waayo wuxuu saameyn xoogan ku leeyahay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan ka reer Yurub. Waxa uu ahaa biiciyaha ugu ballaaran iyo siiyaha gaaska dabiiciga ah ee ay wax ku karsadaan isla markaana ay ka helaan dugsiga iyo waxay dhaxanta iskaga kiciyaan wadamada dhowr iyo 20 kor u dhaafaya ee reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer Yurub oo hadeerta u muuqda inay caqdeen isla markaana ay xaaladoodu ay tahay dad garbi ka sii dhacay. Ruushka wararka ka imaada waxay u kala hadaba duwan yihiin saddex nooc ayaynu kala saari. Warar waxaa tabiya warbaahinta wadankaasi Russia. wararka ay warbaahinta dalka Russia wadankooda ka tabiyaan waa kuwa ay ku dhisan tahay wax loo yaqaano wadaniyad iyo waliba ilaalin meeqaamka wadanka Ruushka iyo waliba tabinta xogaha dawladda oo sidooda ah iyo sidoo kale dhacdooyinka wadanka ku xeeran ee dhinaca dhaqan dhaqaale military hawlgallada iyo waliba wax loo yaqaano fariimo iyo qodbado ay dirayaan madaxda iyo mas'uuliyiintu. warar kuwa ka soo horjeeda isla markaana liddi ku ah waxaa tabinaya warbaahinta reer galbeedka oo aad arkaysid jodhaba inay dhinac u janjeeraan kuwaasoo beenna aan ahayn runna aan u dhoweyn. waxaa kaloo jira dhacdooyin kale iyo sheegashooyin warar ah dhacdooyin kale oo iyaguna ku xeeran isla qadiyadaasi oo ay ka mid tahay eedeymaha joogtada ah iyo dhaliisha aan loo aabayeelin ee mar walba ka imaanaysa mas'uuliyiinta reer galbeedka oo ay si haqabeela ay u siiyaan waqti ku filan wadamada reer galbeedka. waxaa soo raacda warbaahin kale oo ayagu beerka jecel xaydha jecel ah marar badanna isugu dhex jira kuwa dhexdhexaada iyo kuwa aan dhexdhexaad ahayn waana kuwa wadamada Carabta wadamada Afrika
oo xitaa inagu aynu ku jirno waxaana badankooda loo arki karaa in ay yihiin kuwo intooda badan isku tiilaya intii karaankooda inay wararka dhinacyada oo dhan sheegaan tiyo mar walba aad arkayso iyadoo saameyn xoogan ay kugu yeelanayso warbaahintii reer galbeedka oo iyagu xoogooda dhan saaraya suura xumaynta iyo fool markaasi dilidda wadanka Russia wadanka Mareykanku wali wuxuu kamid yahay wadamada ugu wararka badan ama wararka ugu badan laga tamiyay dunida waxa uu leeyahay warbaahin kala duwan oo madax banaan taasoo aan u aabayeelin inay siyaasadda Mareykanka qaada dhigto isla markaana wadanka Mareykanku waa wadanka ugu weyn ee dhinaca madax banaanida xorriyadda qowlka warbaahinta dastuurka dalka Mareykanka qodobkiisa koobaad waxa weeye xorriyadda diinta iyo hadalka ay ku jirto warbaahintu taasi waxay siisay kansho aad u ballaaran warbaahinta oo waayo cidda waajibaadka koobaad ee dastuurka lagu qaadaya waa dawladda oo dawladda ayaa loo sheegayaa inaysan dadka ku faragelin haba yaraateen aysan waxba ka dhihin wax kasta oo ku saabsan waxa loo yaqaano freedom of press oo loola jeedo xorriyadda warbaahinta iyo xorriyadda diinta oo qodobka koobaad ee dastuurka si kale dastuurka dalka Mareykanka waxa loo yaqaanaa dastuurka ugu ballaaran ee wadamada caalamka xorta ay haystaan kan ugu awooda badan siiyayna wax lagu sifeeyay talaabooyin aan haba yaraatee u muuqda kuwa loogu roonaaday shacabka xuquuqdooda kolka laga eegayo dhinac walba Mareykanka wararka hadaba badankooda ka imaanaya ee khuseeya dunida marka laga yimaado waxyaalaha iyaga gudahooda ah waa maadaama uu yahay atooraha ugu weyn ee dunida maanta isla markaana mas'uuliyiintiisu ay wax walba oo dunida ka dhaca ay ka hadlaan waxay comment gareeyaan isla markaana wax ka yiraahdaan dhacdooyinka ka dhacaya bartamaha iyo bariga fog ee Asia qaaradda Afrika geeska Afrika iyo Soomaaliya Djibouti Ethiopia dalka Burma sidoo kale koonfurta Asia sida wadamada Hindiya iyo Pakistan bariga fog ee Asia sida waqooyiga Korea iyo koonfurta Korea Japan isku haysashada iyo isku cunaduubnaanta wadamada isku haysta South China Sea qadiyadaha kale ka jira Central Asia bariga dhexe oo ayagu ay oday u yihiin marar badan iyo wax kasta oo dunida ah oo xataa ay ku jirto shidaalka iyo buuqa ka jira Venezuela Cuba iyo marxaladaheeda Mexico iyo xuduudeeda iyo dhammaan wax soo saarka dalalka waxyaalaha kale ee kamid ah xuquuqul insaanka oo ay sheegaan inay difaacaan iyo arrimo kale waaweyn oo dhammaantood Mareykanka ku lug leeyahay taasi waxay keenaysaa in wararka maalin walba aad daawataan isla markaana laga yaabo in badankiin aad kala socotaan warbaahinteena kala duwan ee Hurfadhi TV iyo sidoo kale bartaydan daraasaadka ee xaashi ay u badnaadaan ama marar badan ay ku jiraan waayo warbaahin kasta oo dunida aad furto waxaad ka helaysaa war uun Mareykanka ku saabsan ama si uun Mareykanka ugu lug leeyahay taasina wuxuu ka dhigtay inuu maanta yahay wadanka labaad ee ugu wararka badan ee laga soo tabiyo dunida saddex Turkiga wadanka Turkigu waxa uu ka mid yahay wadamada ugu wararka badan dunida Turkigu wuxuu leeyahay warbaahin aad u ballaaran oo madax bannaan warbaahinta dalkaasi ka jirta waa midig iyo bidix qaarkood waxay u janjeeraan dhinaca midigta oo waa cilmaaniyiin si weyn wali ula socda xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi aaminsan in wadanka Turkiga laga sii irdheeyo ana dib loogu celin maalmihii diintu ay gacan sareynta lahayd tan islaamka gaar ahaan waxa kale oo jirta warbaahin kale oo dawladda taageerta oo dhinaca wadaniyadda iyo diinta u janjeerta taasi waa ta ugu ballaaran ee dawladdu ay gacanta siiso si weyn u soo tabisa wararka dawladda taa waxaa sii dheer madaxweynaha dalka Turkiga oo saaxiib la ah warbaahinta maalintii ugu yaraan 2 jeer ayuu warbaahinta la hadlaa wuxuuna si weyn u booqdaa gobolada dalkiisa oo dhan wuxuuna leeyahay saameyn taa waxaa sii dheer Turkigu hadeerto waxa uu yahay awood gobol ama wax loo yaqaano regional power wuxuuna doonayaa in uu isku dhigo una ordaya ugu yaraan in uu kasbado awood kamid ah awoodaha waaweyn ee dunida oo super power uu raadiyo walow ay taasi muddo u jirto haddana ugu yaraan sida ay qabaan dadka xeelirayaasha ah waxay sheegayaan inuu noqon karo wax loo yaqaan awood qaaradeed tiyo ay kansho weyn hadeerta siisay dagaalka Ukraine kadib markii uu noqday isku keenaha ka odeeyay qadiyadaha waaweyn ee kamid tahay cuntada qirta la iskula noqday ee adduunka masagada iyo sidoo kale ugu yaraan inuu xiriir wanaagsan la wada leeyahay oo hal maalin 2 saacadood gudahood uu telefoon u wada diri karo madaxweynaha ka kanay wadanka Russia Vladimir Putin iyo cunuga dhulka cagaha ka qaadi waayay ee ka taliya wadanka Ukraine Vladimir Zelensky sidoo kale dalka Turkigu waxa kale uu doonayaa in uu ahaado wadan saameyn ku yeesha arrimaha caalamka islaami soo cishada taariikh hore oo daba socdo taas waxay ka dhigtaa in wararka maalin walba ka imaanaya dalka Turkiga ay tarbeel noqdaan taa waxaa sii dheer halgan kale oo dhaqaale iyo difaaca wadanka uu ku jiro maalin walba waxay keenaan agab hor leh isla markaana shaaca ay ka qaadaan tiknoolajiyada haday tahay diyaarada tronisa maraakiib diyaarada kale qumaatiga u kaca hanaan dhaqaale iyo waliba
wax kasta oo wadankaasi ku doonayeen inuu wax soo saarka dhinacyo isku dheelitiran uu keeno tiyo ay daba socoto iyaduna isku dayo dhinaca madax banaani dhaqaale oo ay ku raadinayaan tabarta iyo waliba waxa loo yaqaano shidaalka oo ay soo faagaan maalin walba oo ugu dambeysay xalay inuu madaxweynaha dalka Turkiga uu ku dhawaaqay in la helay shidaal kale oo hor leh oo laga helay buurta gabar Iran wadanka Iran wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu hadalhaynta badan waayo waxa ka taagan arrimo waaweyn oo gabi ahaantooda wadamada reer galbeedka warbaahintooda xiiseenaas waa ta koobaad Iran lafteedu waxa ay leedahay warbaahin aad iyo aad u trabeela oo dhammaanteed u janjeedha lana socota madaxda dalkaasi haysata oona eeg warbaahin madax banaan marka si guud u eegto laakiin marka si gaar ah aad ugu samayso daraasaad waxaad fahmaysaa inaysan hayn warbaahin madax banaan hase yeeshee ay tahay warbaahin loogu talagalay in ay la saaxiibto dawladda looguna adeego shacabka si iyagu ay qabaan taa waxaa sii dheer in qof kasto Iiraaniya oo mas'uuliyad haya aysan ka reebnayn in warbaahinta la hadlo saraakiisha ciidamada kala duwan ee Qudus saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan warfaafintu isku si ayay ula hadlaan warbaahinta wuxuu doonana qof walba uu dhaha laakiin waxa uu muhiim ah in la ilaaliyo dawladnimada iyo sidoo kale sareynta wadaadada kacaanka haysta ee ayatulluhu ugu horeeyo oo aan haba yaraatee wax dhibaato loo geysan taa waxaa sii dheer warbaahinta bad wareega oo banaanka joogta inta badanna ay lacag ku khasiraan oo ay siiyaan wadamada reer galbeedku ay ku jirto warbaahinta BBC da qaybta af Persianka ku hadasha ama afka Fariska oo Iran looga hadlo taasoo dacaayad iyo qaylo ku afuuf wadankaasi Iran arrintaasi u gobobda ah ee muhiimadda oo dhan siinaysa wadanka Iran in dunidu ka hadasho waa laba qadiyadood oo kala ah hubka nukliyeerka ah iyo heshiiskii JCPOA oo mar walba ah marxalad caalami ah oo ay ku lug leeyihiin inta badan wadamada adduunka ugu tutudharoon shanta wadan codka fiitada ama didmada qayaxan leh sida Mareykanka Shiinaha dalka Faransiiska iyo Britania iyo sidoo kale dalka Russia waxaa sidoo kale ku lug leh wadamada 27 ee midowga Yurub ku jira kuwaasoo damiin ayagu sheegay inay ka ahaayeen heshiiskii burburay ee 2015 magaalada Vienna ee dalka Austria lagu kala saxay kaas oo ugu dambeyntii ku dhintay ama ku baqtiyay gacmaha madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii bishii May sanadkii 2018 uu ka siibtay waxaana ay taasi dib u caratay in wada hadalladaasi kol dambe dib loo amaamudo hase yeeshee waxa ku soo naasacadaan taasina waxay qadiyad xiiso leh ka dhigtay hubka nukliyeerka Iran iyadoo Iran mar walba ay qanjeeriso wadamada reer galbeedka una sheegto in ay maalmo uun ka xigaan goortay bacarmi lahayd hub nukliyeer oo bam ah oo dhulgariir keena waxaase sii dheer arrimaha kale ee gobolka ay ka wadayo dhaqdhaqaaqyada gacan saarka ay la leedahay ee awoodaha isdiidan iyo kuwa israba ee gobolka tusaale ahaan laga soo bilaabo dhinaca badda cas oo Yemen ah ilaa iyo la keeno Ardushaam Suuriya iyo Ciraaq loo sii gudbo waxay ku leedahay saameyn aad u xoogan waxayna haysataa awoodo togan oo dhulkaasi ka dagaalama sida ururka Xisbullah oo ah ururka ugu awooda badan ee wadamada Carabta ka jira oo ciidankiisu ay gaadhayaan 100,000 oo askari hadda ka horna jilbajoojiyay ciidamada awooda badan ee Israel sanadkii 2016 u diiday inay gudaha ugu soo daataan iyagoo lugeynaya dhulkooda Lubnaan Hamas oo xataa Falastiin waxay siisaa dhaqaale Xisbullah كلينا ما هي waxaa xuuthiyiinta iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo saan idin sheegay Ciraaq iyo Suuriya taasina waxay ka dhigtay in wararka ka imaanaya Iran ay trapeel yihiin waxaa kaloo jira kacdoomo Iran mar walba lagu shaqeeyo dad lagu hubeeyo iyo kuwa kale lagu kiciyo haatanna waxay isku jiraan dumarkii iyo ciyaalkii Shiina wadanka Shiinuhu ma laha isagu warbaahin xoogan marka laga yimaado si laba warbaahinood ama saddex sida wakaalada wararka Shiinahu ee dalka iyo wargeyska The Global Times balse wadanka haddana saas oo ay tahay warar uun baa laga keenaa waxaana keenaysa wararka laga keenayo laba arrimood ko Shiinaha oo kor u socda dhaqaale ahaan iyo difaac ahaan taasina waxay keenaysaa inay bataan wararka dabagalka sirdoonka Mareykanku ay mar walba soo faagayaan warbixinaha sanadlaha iyo kuwa saddex biloodlaha ah kuwa kale toddobaadlaha ay mar walba laga soo sheegayo iyo mar walba inay isku dayaan warbaahinta reer galbeedku intay dhagedhageeyaan ay waxun ka soo ogaadaan Shiinuhu dhaqaale ahaantiisa ayaa muuqata sida daraadeedna wararkiisu waxay u badnaanayaan mar walba dhinaca dhaqaalaha iyo tartanka dalalka reer galbeedka uu kula jiro oo hadeerta u eeg in la isku cadaystay wadanka Qatar inkastoo wadan yar yahay oo ku yaala khaliijka Carabta isla markaana wadanka gabi ahaanba uu ku laba jibaarmo dhulka gobolka bari ee Soomaaliya balse oo laba jeer ka weyn tahay gobolka bari uu laba jeer ka weyn yahay balse wadanku saameyn aad u xoogan ayuu leeyahay xiiso ayuu lahaa 10kii sano ugu dambeeyay wadankaasi tan iyo intii sanadkii 2010 uu ku guuleystay
martigelinta koobka hadeerta soconaya hayadana waxaa sii raacay duulaankii wadamada carbeed isku baahaysteen ee lagu go'doomiyey wadankaasi bishii June sanadkii 2017 taasi waxay ka dhigtay wadanka potential waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo ah wadan muhiimad gaar ah leh taasoo laga yaabay sida wadankaasi yar cagaha dhulka ugu hayay loona handadi kari waayay iskuna dhiibi waayay dabadeedna ugu sii socday dhamaan himilooyinkii iyo riyooyinkii ay kamid tahay tanu maanta dhex taagan yahay oo carab iyo cajaba ay dadkii marti u yihiin waqooyiga iyo koonfurta Kooriya labadani ayaga lafkoodu warar xiisale ayaa ka yimaada waayo waxa arinta oo dhan xalad u yeela gantaalaha joogtada ah ee Kim Jong Un uu garaaco taasi waxa ay markaasi keentaa in ficilo loo yaqaan ficil raddi reactionary ay noqoto waqooyiga iyo Japan Mareykanka oo isaguna dabada ka hirgeeya taasina waxay keentaa marar badan in wadamada adduunka oo dhan warbaahintoodu ay soo tabiyaan wararka iyo xogaha Kim Jong Un oo dhaxmaraya raxan gantaalaha oo la tijaabinayo iyo kuwa kale oo la diyaarinayo xagga ururada AU ururka la yiraahdo oo loo yaqaan European Union ayaa kamid ah kuwa ugu wararka badan marka loo eego kulladaha caalamka ka jira ee isku xiran waayo wax walba iyaga farageliya kana hadla shirar joogta ayay leeyihiin qaanuuno ayay soo saaraan waxayna farageliyaan wadamada oo dhan waxayna leeyihiin taariikh gumeysi sidoo kalena waxay meeraan dibadda waxay ka hadlaan arrimaha caalamka ka jira oo dhan NATO ku dar iyadan gaashaamurta NATO 30 dal ayaa ku jira sida daraadeed waxa jira xogaye ay leedahay iyo xubno si joogta u kulma sida wasiirada gaashaandhiga iyo kuwa arrimaha dibadda ilaa madaxdooda taasina waxay keentaa in marar badan la hadal hayo isla markaana ay ku lug yeeshaan xasradaha adduunka ka socda iyo inay mararka qaarkood hanjabaad iyo handadaad ay diraan G20 shir sanadla ayay leeyihiin dal ayaana mar walba gudoomiye ka noqda 20kaasi dal waa 20ka dal ee warshadaha iyo horumarka dhaqaale ee adduunka ugu toddobarxoon mar walbana waxaa wararkooda la maqlaa 2-3 jeer ururka Islamic Organization Conference ayaa kamid ah kuwa iyagana marmarka qaarkood kulamo degdeg ah yeesha aadna xoga xiis ah u yeesha qaramada midoobay ku gabagabay waana kuwa iyaguna mar walba labadooda gole ee golaha guud iyo golaha markaasi ammaanku ay yeeshaan kulamada saameynta ugu xooggan dunida kule mar walba golaha ammaanka waxa ku jira 15 dal 5 dal waxay leeyihiin codka didmada qayaxan waa joogto mana dhacaan 10 dal la marba waxa hela 10 dal oo cusub oo markaasi loo doorto qaaradahana loo qaybiyo waxa kale oo jira golaha guud ee General Assembly oo loola jeedo in ay isugu yimaadaan wadamada xorta ah oo dhan ee 192 ah ee xubinta ka ah qaramada midoobay mararka qaarkood waxa la keenaa qaraaro ugu dambeeyay cambaaraynihii dhawaan lagu gameeyay loona dirayay wadanka Russia amanal